joogo magaalada xoog iyo gubaad iyo mataqaana qawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah awooddaasi oo ahayd cadaaladna waa u baahanahay Soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaana wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan waa muuqaal la yaab leh oo soo duubay Maxamed Amiin Cabdalle oo ah wiil YouTuber Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya kaasoo xalay kooxa budhcada intay kala baxeen gurigiisa si xun ugu jirdiray magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Eastleigh ee dalkaasi Kenya wiilkan oo muuqaal la yaab la soo duubay oo isaga oo dhaawacyo badan ay ka muuqdaan wajigiisa ayaa waxa uu la arkay isaga oo garaafooyin badan ama tug badan ay ku taalo wajigiisa isaga oo ka xun waxa loo geystay waxa uu muuqaalkan ku sheegay in ay 8 nin iskugu tageen laba kalena ay gadaal kaga soo biireen si xunna ay u jirdileen intay baabuur ku qaateen sida uu hadalka u dhigay Maxamed Amiin Cabdalle Maxamed Amiin Yaxye oo ah wiil YouTuber Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Nairobi caasimadda waddankaasi Kenya way ka haysteen wayna shirqooleen kabacdina waxay ugu bilaabeen feer iyo laad ayuu yiri Maxamed Amiin Cabdalle Maxamed Amiin Yaxye oo ku sugan magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya suuxna ayay jirdireen kadibna waxay ii geeyeen in lagu magacaabo Axmed Rashiid oo xaafadda Eastleigh ee magaalada Nairobi ka ah ugu sareeyay ay yiraahdeen kadibna waxa uu yiri waa ka xumay waxa kugu dhacay hooyadana way la soo hadashay laakiin anigu kuma ogeyn in waxa soo dhan lagu geystay ayuu yiri Maxamed Amiin Yaxye oo warbaahinta kula hadlay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya waxa uu sheegay waxa la igu haystaa maxaad u taageertay Sharma Boy oo aad uga soo hadashay aadna u taageertay ayuu yiri taasna waa mid aan anigu xor u ahay waxa uu sheegay Maxamed Amiin Yaxye in uu aarsan doono waxa loo geystayna ay ka shanlayn doonaan kuwii u geystay ayuu yiri uuna u yaqaan mid waa sidoo hadalka u dhigay waxa uu sheegay in kuwa u geystay garaafooyinka ama wajigiisa sida u galay in uu ka aarsan doono uuna yaqaan waa sidoo hadalka u dhigay waxa uu sheegay in uu wixii soo gaaray uu mas'uul ka yahay Axmed Rashiid nin lagu magacaabo oo ku sugan magaalada Nairobi oo dadka Soomaaliyeedna uu sheegay inuu ku dhibo Maxamed waa ninka lagu magacaabo Axmed Rashiid oo ku sugan magaalada Nairobi caasimadda waddankaasi Kenya ninkan yarkan YouTuberka ayaa maalmo ka hor waxa uu magaalada Nairobi caan waxa uu ka waday barnaamijyo uu ku wacyigelinayo oo dad badan oo taageerayaasha Sharma Boyna halkaas uu kula waxa uu sheegay in uu aarsan doono kuwii u geystay dhaawacyadana uu ka aarsan doono uuna yaqaano isaga oo sheegay in maalmahan soo socda jawaab laga heli doono waa sida uu sheegay Maxamed Amiin Yaxye wiilkan oo Nairobi caan ka ayaa sheegay inuu Nairobi joogi doono ku noolaan doono cidna aysan wax ka qaadi doonin maalmo ka hor video uu soo duubay isagoo maalmo ka hor sheegay in hanjabaadyo ay ku soo dhacayeen waa sida uu sheegay Maxamed Amiin Yaxye oo maanta muuqaal argagax la soo duubay